بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سودوا ولا قارئة إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركل سكن سعريي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعديم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على كل حال. سوري واد ولا لها قارية دمانتين وإن سلام ملك استعارف بقرا سعوتان إلهي سبحانه وتعالى هني حفظيو دمانتين الله هنون وضع حفظي أحبائي في الله. ما أنت وحوضا قصة لقى أركي سلق النبي عليه الصلاة والسلام وليب الصلاة الإبراهيمية. إلهي سبحانه وتعالى أيانا أبري سلق النبي عليه الصلاة والسلام ونمعو إيا فرحد إيا خيرات إيا أسباب عجيبة إيا ذكر آدي آد أقيمة بدن أو أنا لماني نمعوين كسو ووليبا لبدا الدارود أحباب في سلق النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة أبي بن كعب مركو النبي عليه الصلاة والسلام ويدي رسولك إله يو كورن بودها هادي أن سلقا الدعاء ديدو أو دنكدغو وحودها إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إلهي همومت الدنيا يا مرحلة هني هرركان يا فكرة استريسك الدنيا أيو إلهي سبحانه وتعالى كاغا قاضيا إلهينا ذنبيا دادو كدافيا ومالنتا إلهي هرتكتي صحيفدهاغي oo maran ayaa u tagaysaa. maxaa ka qiimo badan axbaab filaa maasha allah. aan ku dadaalna saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaanahu watacaala aayadda qur-aanka ah oo uu nagu amray saliga nabiga calayhi salaam wuxuu dhahay إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا كواس يعني إلهي أيمانك لقى هلي مركا قف والبو إيمان له وإنه كدقاه ومعنيه وكدقاه سلق النبي عليه السلام. سيدو كلا سلق النبي عليه الصلاة والسلام صلاة دي بواجب كيها وإلهي سبحانه وتعالى ركن من أركان الصلاة أيو كدقاي وأجيدنا أحبابي في الله والتشهد الأخير حياتك ضنبه وحلو آخرين سلق النبي هداك تكتد صلاة هذا ما شرته وركن من أركان الصلاة. marka maasha allah tabaaraka allah. ilaahay subxaana watacaala wuu nagu adoonsada wuxuu dhahay ku saliya nabiga salaadaheennii shantii salaadood buu ku jiraa mar walba inaan ku dadaalno way adkaar sabax adkaar masaa buu ku jiraa maasha allah aan ku dadaalno walaalaha qaaliga ah. axbaabi fillah waxaa guda galaynaa qisada. marka qisada maasha allah waxay wadataa xikmado aad iyo aad u qiimo badan oo dhammaantii ina wada anfacayo walaalaha qaaliga ah. qisadan ninkan wuxuu yiri waan xanuunsanaa markii intaana bilaabin saliga nabiga calayhi salaam. xaalkaygu wuxuu ahaa xaal xun ayuu ahaa. waan sixranaa, rafaad badan ayaan soo maray, murugo badan ayaan soo maray, dhibaato badan ayaan soo maray, macnihii meelo badan oo laisku daweeyo oo macnihi cilaajiyo badan ayaan soo maray. markaa kadib ayaan waxaan bartay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nimcaday khayraadka ku jira iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu sabab iiga dhigi karo inuu ilaahay igu caafiyo subxaanahu watacaala. ninka markuu wuxuu yidhi axbaa filaa waan sixranaa buu dhahaa. sixirka axbaa filaa siyaabo badan baa lagu ogaan karaa, qofka wuu ka dhex qaylin karaa. markuu cilaajkii iyo la yimid saliga nabiga calaamadihii buu isku arki karaa. marka waxaa laga yaabaa sida uu arkay sixirka muu isa sheegin axbaa filaa sida sixir wuxuu yidhaahday waxa uga bogsaday sixir maasha allah. intaanan wuxuu yidhaahday aanan saliga nabiga bilaabin waxaan ahaa qof sixran oo dhibaataysan oo dhibaato badan soo maray. wuxuu yidhaahday markii aan saliga nabiga bartay waan bilaabay horay weli wuxuu dhahay xilli casar ah galab ah baa la ii sheegay saliga nabiga fadligiisa aan ogaaday. isla casarkii intaan meel fariistay baan akhriyay. waxaan akhriyay buu dhahay axbaabi fillaah 500 oo jeer 500 oo jeer. wuxuu yidhaahday salaada caadiga ah oo markii la soo gaabiyo saliga nabiga calayhi salaam allahuma salli wasallim calaa nabiyina muxamadin taas akhriyay buu dhahay. iimay dhadhamin buu dhahay saa'id. sheekhiyaa ku laabtay waxaan ku idhaahday qofkii ii sheegay siiqo kale ii sheeg baan ku idhi dhahay. siiqada soo aroortay oo nabigu ay ku dheheen asxaabta rasuulka ilaahay oo see kugu salina oo u sheegeen waa siiqada ibraahimiyada. tiibuu u sheegay waa tan soo ma taqaani haa waan aqaano oo salaadaan ku tukada ayada ku wardi. wuxuu yidhaahday markii aan meel baan fadhiistay wuxuu yidhaahday waxaan akhriyay buu dhahay 500 oo jeer waxay igu qaadatay 30 daqiiqo ayay igu qaadatay buu dhahay. 30 daqiiqo ayaa meel u fadhiyay 500 oo jeer. haddana wuxuu yidhi darajada waa ka gudbay darajada 1000 ayaan tagay 1000kii hal saac baan meel u fadhin jiray buu dhahay. haddana waa ka gudbay darajada 2000 ayaan tagay buu dhahay. 2000 2 saacadood ayaan fadhin jiray buu dhahay.
haddana waa ka gudbay darajada waxaan tagay 5,000 5,000 oo jeer oo saliga nabiga salaatul ibraahimiyada 5 saacadood ayaan meel u fadhin jiray buu dhahay wuxuu yidhi darajadii waa ka gudbay 7,500 ayaan la imaadaa maalin walbe ayadana waxaan u meel u fadhiyaa 7 saacadood iyo bar ayaan meel u fadhiyaa bi Allahu akbar maasha Allah tabaarakallah wuxuu yiraahday 7 saacadood iyo bar waqtigayga kamid ah ayaan siiyay saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaahayna iguma dayicin ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ayuu igu siiyey xanuunkii intaasoo sano aan la daalaadhacayay intaasoo sano aan la xanuunsanaa intaasoo sano cilaaj ka daba wareegayay intaasoo xoole aan ku beelay ilaahay subxaanahu wa tacaala muddo yar gudaheed ayuu ilaahay iiga dulqaaday subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu dhahay irsaaqada ayaa ii furantay albaab walbe ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ii ballaqay irsaaqada waasac awlaadaydii ayaan ugu duceeyaa qofba marbaa wuxuu dhahay maalintaa dhameeyo 7,500 inta meel u fadhiisto 7 saacadood iyo barka inta meel u fadhiisto saliga nabiga markaa dhameeyo ilmahayga ayaan u duceeyaa buu dhahay ilmahaygii sidaydii oo kale ilaahay irsaaqaduhu u fura guur wada wanaagsan farxad awlaad ayay wada heleen buu dhahay maasha Allah tabaarak waalidiinta waxyaalaha kula talinaa waxay weeye buu dhahaa markii aad camaladaa waaweyn maasha Allah 7 saacadood markaa meel u fadhiisid saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam oo aad u qiimo badan maasha Allah markaasoo kale oo ilmahaaga ugu ducaysid maxaa ka qiimo badan xabaafila ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ii ajiibay ilmahaygii anigana farxad irsaaqad wuxuu yiri aan dhamaanay maasha Allah tabaarak faraj aan caadi ahayn wuxuu yiri farxad saa isaga soo daba dhacaysa ayaan ugu soo hoobatay maasha Allah dadka islaamka ah waxa uu sheegi lahaa buu yiraahday inay ka faa'iideystaan oo saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam waqti siiyaan xabaafila saliga nabiga laba faa'iido ayuu leeyahay aakhiriga adduunba labada daarood xadiiskaas sayyidina ubay idan tukfa hamaka wa yaghfiru dambaka sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala hal mar markaa nabiga ku saliday ilaahay subxaanahu 10 jeer buu kugu salinaya raxmaanur raxiim khaaliqul khalqi allaha kariimka ah ee deeqsiga ah markuu kugu saliyo 10 jeer markuu kugu saliyo marka hal mar nabiga ku saliday maxaa ka qiimo badan xabaafila salinta ilaahay kugu saliyo inuu ku naxariisanayo inuu dambiyadaada ilaahay ku dhaafayo inuu ilaahay darajadaada kor yeelayo ilaahay inuu ducadaada macnihi ku aqbalayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xaaladda dhibta kaaga saarayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaalad farxad iyo faraj inuu ku gelinayo maxaa ka qiimo badan xabaafila ilaahay baa noo ballan qaaday subxaanahu wa tacaala marka walaalaha qaliga ah aan ka faa'iideysana saliga nabiga calayhi qisada wallahi maasha Allah weliba hadda waxaa ka baranay qisada inta saacadood uu kaa qaadanay saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam marka nolol maalmeedkaaga hal saaco kamid ah ku dar saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam adkaarihii kalena ha ka teginin axbaafila ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo farxad hana waafajiyo kuwa ilaahay ku aqbalana Allah naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdigiisu waa xaq oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiiska nabiga عليه الصلاة والسلام وصح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ما شاء الله تبارك الله مركا أن كددان ولا لها قالقا قصدان آدكو قيمها بدنا ولا لبدن أسي قدبية سي أي أقفى إيديسا ما شاء الله مركا هدي لباتوكو هايستو هدي همومكو هايستو هدي أهربت إنو له ريوين كاكور هميو إلهي سبحانه فرحت كل سيو للصاحب سلق النبي عليه الصلاة والسلام oo wardi ka samayso oo ku dadaal ma sha Allah tabaar oo waqti si adduunyada wax walba oo lagu dadaala waa gaaraa bilaha Soomaalidu wax walba waqti ka shitid axbaafila waa helaysaa wax wada dhahdid waa iska seexanaya waxa way iimaanayaan ma dhici kara axbaafila adduuniya aakhiraba waxay ku xiran tahay dadaal waxay ku xiran tahay amal waxay ku xiran tahay hami ina u leedahay waxay ku xiran tahay niyadaadii oo soo xaadirisay waxay ku xiran tahay yaqiintaada iimaankaaga ikhlaaskaaga ay ku xiran tahay axbaafila insha Allah rajo wanaagsan ilaahay ka qab raxmadaha ilaahay ka quusan ilaahay mar walba ku celceli saliga nabiga mar walba badso insha Allah maalin walba ilaahay ka dulqaadaya dhibaatada maalin buu ilaahay ku aqbalay ducadaada maalin buu ilaahay subxaan darajada ku koryeelaya maalin buu ilaahay subxaan tacaala ka farxin doono farajka iimaaniya axbaafila insha Allah hadaalinin axbaafila hana quusanina hana dhayalsanina axbaafila saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam dhamaantee waxaan kaga baahayahay inaan dadaal gashano وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته